jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxaa isla maanta soo gaaray jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha maamulka Somaliland labada mas'uul si fiican ayaa lagu soo dhaweeyay jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa markii ay madaxdu ka yimaadeen dhinaca airportka waxa uu ugu tagay oo ku qadray hotelkii laga dejiyay madaxda magaalada Djibouti ee Kambiski madaxweynaha dalka Djibouti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kulan wada qaatay kulanka kadibna waxaa ku soo biiray madaxweynaha maamulka Somaliland Salaani iyo Ismail Xabeyn kadib madaxdu waxay wada qaateen qado iyo kulan gooniya kulamadaas oo dhan wax faahfaahin warbaahinta lagama siin laakiin wararaan ka helnay waxay sheegayaan inay iska ahaayeen kulamo iska caadi oo shirka ama kulanka berita dhici doono loogu gogol xaarayo waxaa lagu balansan yahay marka maalinta berita markay iska nastaan madaxdu caawa in kulan lagu qaato xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti kulankaasoo goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele waxaana loo sheegay kulankan inuu ku saabsan yahay arrimaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xiriirka maamulka Somaliland waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland waxaa kamid ah wasiirka madaxtooyada waxaa sidoo kale kamid ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Somaliland waxaa kaloo kamid ah madaxa guurtida Somaliland wafdiga madaxweynaha maamulka Somaliland oo hogaaminaya waxay gaarayaan ilaa iyo 10 qof waxaa kaloo sida loo sheegay dadkii guddiga dhexdhexaadka ka ahaa shirkan Somaliland iyo maamulka Somaliland aad iyo aad bay u mahadsantahay wariyaheena Sagal Siciid Faarax oo ku sugan magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti oo inooga warbixinaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gaaray magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti kulamo hordhacna la qaatay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siinaayo